وفدي هركعyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Muqdisho Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa booqasho ku gaadhay deegaanka Oromiya gaar ahaan gobolkaasi Arsi oo ay isla markaasi wax soo saarada kala duwan ee booqashada ay ku soo mareen. Ambassador Ridwan Hussein oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha dhinaca amniga ayaa sharaxaad ka siiyay diblomaasiyadda kala duwan ee ku sugan magaalada Addis Ababa heshiiska ay dowladda Itoobiya iyo TPLF ay ku gaadheen ee nabadeed. وأنا ونكسر كسر دوّا دور كلام تفصيل ماني قالوا قضاء تي في توصل كنا تقول سعودان محمد أيا وركيد سوق أرسينيا وفتي هرك عيور رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد أيا بقشك وقاري دجان كاسي أورميا جارهنا قبل قلبيت كأرسي وهالكاسينا كسوين ديندي وحصو ردا كل الدوان كالسعودات دجمده هروبه لو يقانو قبل حافظة تولدا والقط أيا وحنا هالكاسي بقشة سيو كسو مريك كسوين ديندي وحصو صار كل الدوان قبنديدا وحنا هالكاسي كسو أركي دينعه بوحبير الشدة صار كدينعه لقى فايدة يقولها وين لقى قاري وحنا وصوين ديندي أو وفت كاسي بقشة كسو مرين سجال بقول يستيتن يتضبه هكتار أو صار كدينعه قبنديدا أو لقى بيري ديجان كاسي أورميا جرهان قلبيت كأرسي waxaana soo kale ra'iisul wasaaruhu halkaasi booqashadaasi waftigaasi ay ku soo mareen oo ay ku soo boqdeen oo kamid ah waftigaasi mas'uuliyiinta sirtare ee dawladda federaalka iyo waliba mas'uuliyiinta kala duwan iyo waliba safiirada u fadhiya dalalka kala duwan ee caalamka dalka Itoobiya ayaa kamid ah waftigaasi wehelinayay ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed. رئيس الوزراء كحين كهنا وزير كارمها دبدة مدني دمق مكون يا كون وضتشية لي الشيء إسلام السنة وزير كارمها دبدة يدل كاستوجا إمارات كعربتها الشيخ عبد الله بن زايد وحنا يكود هذين أرمها إسكاش جاء كدحية لبض الدل سدي لوسي حوشلها وهذا الكود السنة يا هام مدني دمق مكون يا وحوش شيء إن دولة إثيوبيا يولبه دولة كوحدة TPLF ay heshiis ku gaadheen isla markaasina heshiiskaasi uu yahay mid guul weyn u horseedaya dalka Itoobiya taasina uu sharaxaad ka siiyay waxaana ka wada hadlay sidoo kale in xiriirka ka dhaxeeya isutaga Imaaraadka Carabta iyo dawladda Itoobiya heer wanaagsan si loo gaarsiin lahaa ay ka wada shaqeyn doonaan. warbixinta ka soo baxday deegaanka Canfarta ayaa waxay sheegaysaa in heshiiska ay dawladda federaalka Itoobiya iyo waliba kooxda TPLF ay ku gaadheen ay si weyn u soo dhaweynayso meel marintiisana ay si weyn uga shaqeyn doono deegaanka Canfartu waxaana deegaanka Canfartu warbixintiisaasi uu soo saaray oo ku sheegay inuu kala shaqeyn doono maadaama xalku uu yahay xalka nabadda iyo heshiiska nabadeed uu yahay mid wax weyn laga bedelayo oo xalna u ah shacabka Itoobiya iyo waliba dalka Itoobiya oo dhan arrintaas iyadoo laga duulayana ay ka shaqeyn doono deegaanka Canfartu si loo horumarin lahaa oo loo dhaqan galin lahaa heshiisyada kala duwan ee lagu gaadhay sidii nabadda ay ugu saxeexdeen heshiiskii ay ku saxeexdeen magaalada Pretoria ee dalkaasi Koonfur Afrika iyo si loo meelmarin lahaa iyo qodobadii kala duwanaa ee heshiiska lagu gaadhay meelmarintooda ay kala shaqeyn doonaan maadaama xalku uu yahay xalka nabadgelyadu uu yahay xalka kaliya ee ugu wanaagsan ee dalka lagu horumarin karayo dalka jiritaankiisana lagu xaqiijin karayo uu yahay warbixinta deegaanka Canfarta ka soo baxday ayaa soo kala tilmaamaysa in ay ka wada shaqeyn doonaan xubnaha ay khusayso sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa hantida burburtay iyo waliba خسارooyinkii ka soo gaaray dhinaca horumarinta asaasiga iyo waliba adeegyada kala duwan ee asaasiga si loo balaarin lahaa dibna loo dhisi lahaa uu deegaanka Canfarta kala shaqeyn doono heshiiskanina si weyn u soo dhaweynayo. سفيرك ambassador Ridwan Hussein ayaa sharaxaad balaaran ka siiyay heshiiska dawladda federaalka Itoobiya ay gaadhay iyo waliba kooxda TPLF ay gaadheen sharaxaad balaaran ka siiyay diblomaasiyiinta kala duwan ee ku sugan magaalada Addis Ababa inuu heshiiskaasi si loo meelmarin lahaana ay ka wada shaqeyn doonaan warbixintan gudubno dawladda Itoobiya iyo kooxda TPLF ayaa waxa uu sharaxaad ka siiyay ambassador Ridwan Hussein oo la taliyaha ra'iisul wasaaraha ee dhinaca amniga ayaa sharaxaad ka siiyay diblomaasiyiinta kala duwan ee ku sugan magaaladani Addis Ababa waxaanu ambassador Ridwan Hussein oo sharaxaad balaaran ka siiyay heshiiska ay ku gaadheen
dowladda Ethiopia iyo kooxda TPLF iyo waliba sidii ay amniga iyo nabadgelyada uga wada shaqeyn lahaayeen haddaba ambassador Ridwan Hussein ayaa sharaxadaasi uu siiyay waxa uu kaga hadlay in arrimaha kala duwan si wada jir ay uga wada shaqeyn doonaan labada dhinacba xisbiga TPLF iyo waliba dowladda Ethiopia iyagoo iskaashanaya ay ka shaqeyn doonaan arrimaha amniga iyo nabadgelyada iyo hawlaha dib u dhiska loogu sameyn doono oo ay ka wada hadleen sidii ay sharaxadna uga qaban lahaayeen u soo bandhigi lahaayeen hawlaha kala duwan ee laga qabanayo arrimaha amniga nabadgelyada ee guud iyo waliba dib u dhiska dalka sidii ay uga shaqeyn lahaayeen ay ka wada shaqeyn doonaan dhinaca kalena diblomaasiyiinta kala duwan ee ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa si weyn u amaanay oo sheegay in mar walba isgarab taagayaan dowladda Ethiopia oo dhinacyada kala duwanna ay kala shaqeyn doonaan kulankaasi uu sharaxada ku siiyay ambassador Ridwan Hussein oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha ayaa sharaxada ballaaran u siiyay waxa uu ku sheegay inay kooxda TPLF iyo waliba dowladda Ethiopia ay heshiis ku gaadheen oo ay ka wada shaqeyn doonaan sidii hawlaha kala duwan ee dhinaca amniga iyo nabadgelyada iyo waliba dib u dhiska dalka si ballaaran uga shaqeyn doonaan xilliyada dambana sharaxadaha kala duwan ee ku saabsan hadba shaqooyinka kala duwan ay qabanayaan ay soo bandhigi doonaan ودولة سوماليا يو دولة إثيوبيا أنا راح ذي وربحنا دي بانو جينا نقص الله عندنا بس هو حال الشيء دولة إثيوبيا إن عن كنت هيدين على حلين خلافات كيولي بها رماها نبض جديدة يحوشين تودا أي دور وين كل ده هي دولة إثيوبيا وربحنا راح نوصل كوبيا شكري أحمد aragtida Ethiopia ee ku aadan arrimaha Afrika iyo in xalka Afrika uu ku jiro gacanta Afrika ma aha mid isbedesha hadba marka uu isbedelo hoggaanka dalka Ethiopia markii ay ka soo gudubtay halgankii ay u gashay iska difaacida gumaystihii Talyaaniga waxa ay bilowday dadaal ku aadan sidii loo heli lahaa Afrika madax bannaan iyo in la dhiso urur loo yaqaano ururka midowga Afrika sidoo kale Ethiopia waxay kaalin mugle ka qaadatay aasaaska iyo hirgelinta fikradda Pan-Africanism-ka waxayna marar badan cadeysay Ethiopia inay muhiim tahay in dhibaatooyinka Afrika ay xaliyaan Afrikaanka dhexdooda waxayna sidoo kale ku dadaashay inay wadamada kale ee Afrika tusaale u noqoto si ay iyada u xalisatay dhibaatooyinka gudaha dalkan Ethiopia wixii ay iyada xalin kari waysana inuu midowga Afrika xaliyo ayay marar badan ku celcelisay ka go'naashaheeda waxaana tusaale ahaan loo soo qaadan karaa in biyo xireenka weyn ee Ethiopia markii dhismihiisa la bilaabay webiga wadamada uu sii maro ay ka muujiyeen carab ballaaran taasoo Ethiopia ay ku dadaashay in wadamadaasi ay ku qanciso in biyo xireenka Ethiopia uusan wax halis ah ku haynin wadamadaasi ase ahaatee wadamadaasi ayaa waxa ay ku dadaaleen in arrinta biyo xireenka webiga Nile la horgeeyo golaha ammaanka qaramada midoobay ase ahaatee kulamadii ay qaramada midoobay ka yeelatay arrimaha biyo xireenka weyn ee Ethiopia waxa ay halkaasi ka cadeysay in Ethiopia ay doonayso in xalka loo daayo midowga Afrika taasoo cadeynaysa kalsoonida ay Ethiopia ku qabta midowga Afrika dhinaca kale intii Ethiopia ay ku jirtay colaadda waqooyiga Ethiopia ayay qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka iyo hay'adda qaramada midoobay waxay isku dayeen inay ajenda ka dhigtaan arrimaha gudaha Ethiopia balse qaramada midoobay kulamadii ay ka yeelatay arrimaha waqooyiga Ethiopia ayaa Ethiopia waxa ay ku cadeysay mowqifkeeda ku aadan arrimaha gudaha Ethiopia taasoo Ethiopia ay ku sheegtay inay habboon tahay in arrimaha gudaha Ethiopia loo daayo midowga Afrika in ka badan 12 jeer ayay hay'adda qaramada midoobay yeelatay kulamo lagaga hadlayay arrimaha gudaha Ethiopia waxaana lama huraan noqotay in midowga Afrika lagu soo celiyo arrinta Ethiopia marka kadib midowga Afrika ayaa si uu u guto waajibaadkiisa waxa uu bilaabay dhisidda guddi u xilsaaran wada hadallada nabadda Ethiopia oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo kaasoo muujiyay dadaal nabadeed oo lagu xalinayo colaadda waqooyiga Ethiopia iyadoo dhanka kale dowladda Ethiopia ay si dhow ula shaqaysay midowga Afrika waxaana fashilmay qorshihii lagu doonayay in qaramada midoobay ay faragelin ku samayso arrimaha gudaha Ethiopia si shakhsiyaad gaar ah ay u gaaraan danahooda qaaska heshiiska lagu soo afjaraya dagaalka waqooyiga Ethiopia ee la kala saxiixday waxa hogaaminayay muwaadiniinta Afrika taasoo lagu tilmaami karo guul weyn oo ay gaareen midowga Afrika ugu dambeyntii waxa guuleystay fikirkii Ethiopia ee ahaa xalka Afrika waxa uu ku jira gacanta Afrika Ethiopia iyo dalka Soomaaliya ayaa ka wada hadlay sidii ay uga shaqeyn lahayn arrimaha amniga iyo nabadgelyada si loo sii xoojin lahaa warbixintan aan gudubno dowladda Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya ayaa ka wada hadlay sidii ay amniga iyo nabadgelyada dalalka geeska Afrika si wada jir uga wada shaqeyn lahaayeen haddaba wada hadalkaasi ayaa ahaa mid ay kaga wada shaqeynayaan labada dhinac sidii amniga iyo nabadgelyada ka dhaxeeya labada dal loo sii xoojin lahaa haddaba iyadoo arrintaasi laga duulayo ayuu wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee sirdoonka dalkan Ethiopia bishii 19 sanadka 2015 waxa uu booqasho ku gaadhay dalkaasi Soomaaliya waxaana halkaasi kulan kula yeeshay
agaasimaha guud ee arrimaha amniga dalkaasi Soomaaliya oo ay ka wada hadleen sidii loo wada xoojin lahaa oo looga wada shaqeyn lahaa arrimaha la dagaalanka argagixisada dalkaasi Soomaaliya ka dhaqaaqaya argagixisada al-shabaab si loo dabargoyn lahaa ayaan ka wada hadleen waxaana haddaba dhinaca amniga iyo sirdoonka iyo xogaha kala duwan ay ka wada shaqeyn doonaan dalka Itoobiya iyo dalka Soomaaliya agaasimaha guud General Sisay Tola sirdoonka guud ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu kulan la yeeshay oo ka wada hadleen General Mahad Mohamud oo arrimaha waqti xadirkan ay ka wada hadleen labada dhinac ee dalka Soomaaliya iyo dalka Itoobiya ay si wada jira arrintaasi uga wada shaqeyn doonaan oo si wada jirana ay u dagaalami doonaan argagixisada al-shabaab ee ka dhaqaaqaysa dalkaasi Soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen si labada dal ay uga wada shaqeyn lahaayeen oo amniga iyo geeska Afrikana si loo xoojin lahaa ay si wada jira uga wada shaqeyn doonaan arrimaha ka dhaxeeya labada dal gaar ahaan dhinaca amniga iyo nabadgelyada iyo isweydaarsiga xogaha si adag ay uga wada shaqeyn doonaan Itoobiya iyo dalka Soomaaliya taasoo wax weyn ka tari doonta nabadeynta dalalka geeska Afrika waxaana waddanka hadalkaasi uu ahaa wafdiga ka socday dalkan Itoobiya ayaa u qaaday kadib markii qaraxii weynaa uu ka dhacay dalkaasi Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee isgoyska Sobe ayaa waxa wafdigani uu qaaday qalabyo kala duwan oo dhinaca caafimaadka ah oo lagu gurmaday dalkaasi Soomaaliya haddaba boqoshadaasi uu ku gaadhay agaasimaha guud ee sirdoonka dalkan Itoobiya General Sisay Tola ayaa waxa ay ka wada hadleen dalkaasi Soomaaliya inay kala shaqeyn doonaan oo shir saxaafadkaasi soo saarina kaga hadlay in si weyn looga shaqeyn doono arrimaha amniga iyo nabadgelyada dalkaasi Soomaaliya si argagixisada al-shabaab ee dhibaatooyin kala duwan ka geysanaysa dalkaasi Soomaaliya looga dabargoyn lahaa hagaag waxaan taasna ugu dhamaaday warka kala socotay laanta Soomaaliga luqadaha TV intaan ka bixin kor qodobada warkan xasuusiyo wafdi horka ayuu ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa booqasho ku gaaray deegaanka Oromiya gaar ahaan gobolkaasi galbeedka Arsi soo saarada kala duwan ee qabanidana ku soo dhigay halkaas la taliyaha dhinaca amniga ee ra'iisul wasaaraha ambassador ridwaan xuseen ayaa sharaxaad ka siiyay diblomaasiyiinta kala duwan ee ku sugan magaalada Addis Ababa heshiiska dawladda Itoobiya ay gaadhay iyo waliba kooxda TPLF وهاجاج وحين تاسو نقول ما دي وركات كلا سعودية لانتا في سوماليا لقطة TV دين عيجان نبتكلم دير جروبا قيبها كلا دواني برنامج كهوذا يفسد